tartankani kubadda cagta oo lagu soo saarayay ciyaartoy daayar uu yeesho xulka qaranka Soomaaliya ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay'adda Mini Football waxa uu ka dhacay tartankani degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir iyadoo ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya siyaasi Cali Maxamed Geedi iyo gudoomiyaha degmada Xamarjab sidoo kale waxaa tartankaasi ka soo qayb galay taageerayaal aad u fara badan tartankani ayaa loo qabtay 40 koox waxaana soo agaasimay hay'adda Mini Football iyadoo tartankani lagu furay laba kooxood oo kala ah Israac iyo sidoo kale Bandhabo gudoomiyaha degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir Ahmed Ismaan Doore iyo xogayaha Mini Football Xaaji Aadan Cabdulla iyo sidoo kale agaasimaha sportska ee gobolka Banaadir Xasan Aadan Yabaro Wiisha ayaa warbaahinta u sheegay ciyaarta kadib in tartankani uu yahay mid lagu doonayo in lagu soo saaro ciyaartoy daayar uu yeesho xulka qaranka Soomaaliya 40 koox ay dhalinyarada ay ka ciyaari doonto oo da'dooduna ay ka yartahay 15 jir ilaa 16 wixii ka yar marka runtii aad inoo farxad gelinaysa in degmada Xamarjab ay noqoto degmadii ugu horeysay mashruucan fulinayso haddaan nahay maamul gobolka Banaadir waxa aad iyo aad u daneynaa dhalinyarada da'da iska yar waxaan magaaladan degan loo qiyaasaa 2 milyan bar oo ah bulshada gobolka Banaadir boqolkiiba 70 boqolkiiba 60 ay ka yihiin magaalada Muqdisho waxaan rabnaa marka cid walba horumarkooda ka dadaalayso amba rabto inay activity isu dhiso waa soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa Mini Football Soomaaliya inuu gaaro gobolka Banaadir meel Allah insha Allah taala iyadoo qiimaha uu leeyahay aad aragtaan dadka yarka geerisuudka halka laga soo saaray ay tahay ama qaranka Soomaaliya calaga cid difaacaya siyaasi Cali Maxamed Geedi ayaa sidoo kale ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay door ka qaataan horumarka dalkooda waxaan rabaa dhalinyarada inay hortaagan yaryarka ah iyo inta ay maqlaysaba dadka waxa ku xiga kan kubadda kula dheela dadka waxa ku xiga kan galaaska kula fadhiya kursiga dhinacaaga dadka waxa ku xiga kan deriskaaga maskaxnayda ayaa la gelin qabyaaladii quranka Soomaaliya baabashay in laga dhowrno wareejinay wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo sportska Ismaan Aadan Dhubo waxa uu sheegay in wasaaradda ay dhiirigelin doonto isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dhalinyarada da'da yar ee doonaysa inay ka mid noqdaan xulka qaranka Soomaaliya waxaan rajaynayaa in wasaaradda ahaan inaan markasta garab taagnaano degmooyinka dhammaan gobolka Banaadir qaybaha ciyaaraha ee dhalinta dhammaan gobolada dalka iyo degmooyinkooda dhan waxaan rajaynayaa in gobolada iyo degmooyinka sidii lagu yaqaanay ay bilow noqon doonto in ay wada ciyaaraan oo gobolka kale uu gaaro mustaqbalka soo dhow Nur Saciid Television TV Muqdisho.